kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantii baddaawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni toddobaadlaha ahaa ee codka siyaasiga oo maanta marti noogu yahay gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga wadani gudoomiye doob ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee Horyaal TV iyo barnaamijka codka siyaasiga waa dhawaysagna aad iyo aad bad mahadsantahay gudoomiye waxa jirta xaalado isbarkan oo cakiran oo Soomaaliland iskaga daba imanayay taas laftigeedana idinka iyo taageerayaashii aad moodo inay laba idin kala jabisay waxa jirta 2 sano oo aad lahaydeen gudidii komishinka doorashooyinku cadaalad darray nagu sameeyeen codkayga bay nagaga shubteen iyo wax la mid ah maantana waxaad ku andacoonateen ama aad ku taageerteenba in gudidii komishinka doorashooyinka hore la soo celiyo maxaa u maleynaysaan kalsoonida inta leeg aad ugu qabtaan بسم الله الرحمن الرحيم أنا هرت دوا سؤال لسويدين كراوي وأنا مدن تايد سؤالين لسويديو ومهم وي سارنتي دوا شرتيو وحلاورن كرا دم شرت معها وشرتين لبس النضال حسب ودنا إلهيان هلا بدلكم الشكا سارنتي أنا مركز تبشي تبش أيه markastana dalkan Soomaaliland wuxuu ku soo caanamaalay ama uu ku wada shaqeeyaa wada tashi iyo isu tanaasul iyo safkarad saaruntii markii hore wadani qoraal bay gudbisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland bay ku hagaajisay waxay doonayaan inuu systemka sharcigu dhigayo in madaxweynuhu maro madaxweynuhu waxa ay inuu guddi markaa u saaro guddidaas baaritaan dabeetana ay soo celiso guddida baaritaankeeda markaa wadani loogu jawaabo laakiin arkaadayga keenay wuxuu ahaa in guddida lagu dhaganaado madaxweynaha qoraal intuu soo qoray yiri yaani guddida ma khaldana oo garnaqay maxkamadda madaxweynaha noqday sharciguna wuxuu dhigay hadii guddida laga cawdo in loo saaro maxay tahay guddi oo madaxweynaha laftiisa maxay tahay qodobka dastuurku faraya in uu u saaro maxay tahay guddiga u saaro sharciga doorashooyinka maxay tahay komishinka qaranka taasi ma dhicin taasa waxay keentay in wadani markii madaxweynihii ku adkaystay guddidu way wacantahay iyaguna inay ku adkaystaan guddida aqbali mayno marka hore waxay lahaayeen tabashaanu qabnaa laakiin markii madaxweynuhu tiskiyay deeyana waa xisbigeena wax go'aan ku gaadhay in la adkaysto waadogeyd laakiin saaruntii xisbiga wadani uu tanaasulay marbuu tanaasulay labuu tanaasulay saddex buu tanaasulay maanta kaliya muu tanaasulay laakiin wuxuu tanaasulay xisbiga wadani wuxuu soo dhigay in guddidani aanay ahayn guddi loo sameeyay oo 9 xubnood in guddida laga dhigo ay soo jeediyay si ay u noqoto guddi isu dheelitiran oo ama isku dhowdhow taas runtii heshiiskii waa la saxeexday madaxweynuhu waa la saxeexday wayna wada ogsoonna waa ka dhareegsanay dadka reer Soomaaliland waa ka dhareegsanyiin haddana markuu madaxweynuhu baarlamaanka gooyay baarlamaankii baa laalay wadani go'aan bay qaadatay way ka tanaasushay saaruntii marka mar labaadkiina dawaatii guddidaynu ogeyn la keenay ee maanta joogta taana wadani dibiyadiid far badan bay ka samaysay maanta laakiin waxa ay uga tanaasushay oo ay u qaadatay arrinka dalkeena sida aynu ogsoonahay waxa yaani qayb weyn ka qaata bulshada rayidka oo ay ugu horeyso culimada maxay tahay ganacsatada aqoon-yahanka madax dhaqameedka dadka noocaas oo kala oo la oran karo dadka reer Soomaaliland waxa ugu mudan culimada ayaa soo jeediyay in wadani ay maanta tanaasusho in yar aan ka dhex galo gudoomiye waxa tiri madaxweynaha ayaa ku adkaystay guddidii hore inuu haysto wadanina uu ka soo horjeestay isla markaana madaxweynihii markii uu kala diray iyaga guddi kalena magacaabay ama la magacaabay sida dastuurku dhigayo haddana dhinacii uu ka taagnaa mahana dhinacii kale aad soo istaagteen miyaan la oran karin xisbiga wadani ma laha siyaasad cad oo waxna ku diidi karo waxna ku raaci karo ee wixii madaxweynuhu doonoon bay diidayaan maya lama oran karo سارنتي حسب جوادني وان كل شيء أو محيط السجل وان كهذلي وتناسلي أو تناسلي وحنا تناسلي يا مدحونا معه وحنا تناسلي يا تدوينها رئيس سوماليلان يود الشركة رئيس سوماليلان يهاب صعد ك محيطين كل شيء أي ودنا تناسلية ما أنت نوح تناسلي أو ليه هو نفسي داي جد دي هراء يدو محيا يتوي قدوم يا حسب قاعد مغلى سنة ولا ها تعرض ديك غير ده وان لقينا
qofka bini'aadamkaana haddaan laba daran la kala dooransiin waxba lama kala dooransiin haddii lagaa ma malab baa lagu siiyaa iyo maxay ay toy haddii badankeeda iyo wax kaloo qaraad oo aad timaado malabkay siiya de malabkaad qaadanaysa wax xaqiiqo weeye laakiin haddii laba qarqaraad la isu ka barbar dhigo de waa yacni si aad u kala doorataa way adkaanaysaa laakiinse way dooratay waddani qaraarkana saasay ku qaadatay insha allah waan gartay maadaama horta hal su'aal maadaama aad ku kalsoonaan weydeen guddidii hore ee la kala diray oo aad haddana hadda ka dalbateen inay soo noqdaan waa maxay ujeeddada weyn ee aad ku nacdeen ama aad kaga biyadiideen guddidan cusub ee aan weli shaqo gelin idinkoo guddidii hore ogaa intii dhaliilooda u soo jeediseen runtii guddidan cusub dee waaba la isdul taagay guddidoo dhanna maaha runtii waddani laba qof bay ayay tiri hana laga bedelo labadaa qof mid waxay ku salaynayeen inuu ku jiray guddidii hore commissionka ee la isla afkartay in xilligoodii dhammaaday oo la bedelo oo heshiiskaasay ka mid ahay midna wuxuu ahaa hal siyaasiya oo maxay ahayd toy dee isagu ku milmay xisbiyada qaranka oo dee siyaasaddiisa caddaystay oo aan la odhan karin dee waxbuu dhexdhexaadin karaa marka xaqiiqada iyo maxay ahayd toy aan laga fogaanin lama odhan karo nin siyaasaddii u bambaxay oo cid garab ka saaray commission qaran buu noqonayaa dee suuragal maaha marka labadaasaa la haystay laakiin commissionka o dhan lama qabsan waa tahay doorashadii lasoo dhaafay ee xisbiga waddani uu ku guuldaraystay sidii loo wada ogaaba waxaad eedda saarayseen guddida commissionka doorashooyinka isla maantana iyagii baad ku andacoonaysaan inay idiisoo joogaan in doorasho kale ay dhacdo isla kuwii aad ka andacoonaysayna idiin noqdaan siidhi walayaal ama dhexdhexaadiyayaal idiin noqdaan iyo inaan shakhsi xisbigiina waddani ka tegay dartii aad yacni doorashada kalena aad sii saadaalisaan rag ayadan ku kalsoonayn teebaa la odhan karaa ayaad awoodda saaraysaan inaad dhacdaan mar kale ka xisbi waddani ahaan oo aydan guddi aydan ku kalsoonayn doorataan su-aasha biyadhaceeda iyo inaad hal shakhsi oo xisbigiina ka tegay dartii waxaa u samaysaan keebaa idinla weyn baad malaynaysaa ka xisbi ahaan dee saa runtii annagu shakhsi xisbigaya ka tegay oo keliya maanaan diidin waxaanu diidnay yacnihii systemkan hadda soconaya ee lagu soo magacaabay shakhsiyaadkan aanu leenahay maxay tahay meesha laga saaro laakiin guddidaa hore wixii aanu ka gudbinay waxay ahayd cabashada iyo diidmaduna waa kala jaad wey diidmada waxaa gaadhsiiyey oo fogeeyey oo dastuurka u mari waayey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan hadda waxaanu ku aqbalayna waxa weeye fadliga iyo karaamada ay leeyihiin dadka reer somalilan ee codkarka ayaanu ku aqbalay waayo dadkaanu codka ka doonaynaa waxa weeye waa dadka reer somalilan weeye bulshada reer somalilanna 100% bay soo dhaweysay inaanu aqballo guddida waa saa weye aad iyo aad baad u mahadsan tahay guddoomiye muddadii ugu dambeysay ee dhowrka bilood ugu dambeeyay xisbiga waxaa ka baxayay mas'uuliyiin aad u tiro badan mas'uuliyiintaasoo marka loo eego dhanka beelaha hal beel ka soo wada jeeda maxay tabanayaan baad u malaynaysaa dadkaasi wallahi saa runtii dee anigu gobolkan aan joogaa mas-uuliyiinta dee gobolkan uga wakiilka baan xisbiga mas-uuliyiinta saa runtii aan arkayna gobolada kale iyo qaar heer qaraniba dee waan dareemay su-aashaasina waxaan jeclaan lahaa inay iyaga ku habboon tahay laakiin xilliga marka dee dagaalku markuu raago in badan uu socdo dad fara badan dib way isaga fadhiistaan waxaa suuragala dee mucaaradadii iyo maxaafidadii inay siyaa maxaafidadii ku dhawaada oo ay mucaaradada faraha badan leh dee la saadaalinayo inay waqti kalena sii socoto dee inay dadkaasi ay dib unugaga degeen laakiin anigu ma dareemsani inay dee reer ahaan iyo wax lamid ay xisbiga uga tageen waayo dad fara badan oo dee reerka xisbigaa baa jooga waxa inta badan xisbiga waddani dhexdiisa lagu arkaa ama laga dareemaa marka ay ka baxayaan xubno mas'uuliyiin ha ahaadaan ama dad magac ku dhex lahaa xisbiga ha ahaadaan isla markiiba in la yiraahdo waxay haayeen kulmiyihii naqaabnaa eedaas adigu ka guddoomiye ahaan sidee baad u aragtaa maya anigu taama qabo se runtii dadkani waa dad reer somalilan qof kastaaba wax weeye fikirkiisu wax ku dooranayay dadnimadiisu wax ku dooranayay basaasnimo xisbi loo dhex joogo waddani maaha waana 2 xisbiyo 3 xisbiyo reer somalilan baa tartamayay qof is cadayn karayo halka ka dagaalami karaya xisbi inuu basaasnimo u joogo wax weyn noqon mayso waayo codkiisii dee dadkan aynu yacni mas'uuliyiinta xisbiga ka tagayaan dee waa dad cod iyo cudud iyo hadalba dee geliyey dee intaana waa laga imanaya kulmiyana waa laga imanaya oo rag kulmiye ka baxayaan intaaba waa jiraan qaar cid intaa ka baxaya waa jiraan
qaar wadani ka baxayaana waa jiraan oo dee waxay la mid yihiin xisbiyada kale ee qaranka man anigu aaminsanahay waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaa jira mas-uuliyiin idin matali jiray goobjoogayaal iyo komishinka doorashooyinkaba iyagii maxaa idinka yaala maadaama isla guddidii hore la soo celiyay miyay sii joogayaan waxaa jiray mas-uuliyiin aad idinku u igmateen inay idiin matalaan komishinka doorashooyinka ama goobjoogayaal gobolaba ha ahaadaane kuwaas miyay sii joogayaan ka xisbi ahaan mise waa kala diri doontaan dee horta qorshayaasha doorashadu markay muuqato Soomaalidu waxay ku maamaadaa marka looda la helo marka weelaa la helaa looda la maalay marka doorasho muuqato ayaa la oranayaa war halka ayaa munaaqib inooga noqonayo inoo joogayay oo inoo metelaya marka aanu waxaan filayaa in xilligaas in dib loo habeyn doono insha Allah ma ka saxo halkaan ka hadlaya ama aanu socdaa ma ahaan in munaaqibiintii nidii ilaalinaysa sanduuqyada oo kala ma aha laakiin waxaan ka hadlayaa madaxdii idin metelaysay komishinka doorashooyinka ama heer gobol ha ahaadaan ama heer qaran ba ha ahaadaan miyay idin sii joogi doonaan iyaga laftigooda mise waa idin kala diri doontaan soo mas'uuliyiinta codka u tirinaysay maaha ee annaga xagga wadani ahaan ka soo jeedayday ee komishinka qaranka kama tirsana waxay ka tirsadeen xusbiga wadani waxaana goobjoog u yihiin Soomahay u tirinayaan codka xusbiga wadani Soomaa dee munaaqib qof kastaaba goobtu joogun buu ka yahay mid heer degmo ka iyo mid heer gobolka iyo mid heer qaranka weeye waxa weeye kulligood waa wada munaaqibiin oo codkan wadani un bay tirinayaan oo ilaalinayaan oo tiradiisa saxayaan marka kuwaas waa kuwan ku sheego waa isku wada midoon oo de xilliga doorashada la gaaro ayuun baa laga tala bixinaya insha Allah ilaahay wuxuu gaarsiiyay waxa marka loo miidaanday ama la eego xisbiga wadani waxa ka muuqda kala daadsanaan badan marka heer gobol ahaan loo eego ma waxa sugi doontaan inta ay gaadhayso waqtigii doorashooyinka mise inta ka horeysa waxba idinka qorshaysan taas runtii marka xisbiyadu tartamaane ay maxay hayeen ay ku guuleysan waayaan hadafkii ay lahaayeen ay gaari waayaan may guul dareysan wadanaysa runtii laakiin si waxay gaari weeday yoolkii ay lahayd yoolkii bay ka soo ka dhacday marka waxa weeye runtii markasta waxa la sameeyaa dib u habeyn baa la sameeyaa dib u habeyntii aan sameyn lahayn ee la gali lahaana de waxaba lagu jiraa nidaamkii dib u habeyntii dhameeyay qaranka ee wadani imanka u taagan tahay mas'uuliyiintii ku mashquul lahayd inay xisbiga dib u habayso xukuumaddii iyo komishinkii iyo dalkii Soomaaliland la oran jiray in wax laga toostoosiyo ayaa lagu mashquulay saasana markaa aan dib loogu habaynin wali goboladii iyo degmooyinkii waxa jirta xisbiga wadani inuu xilal ka qaaday mas'uuliyiin siyaabo kala duwan madaxtooyada ugu tagay ama madaxweynaha ula kulmay ama waqtigii cali masaarka baan idhaahdee isla kadibna waxa booqasho ugu tagay madaxtooyada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro marka ma la oran karaa sharciga xisbiga wadani madaxda ugu sareysa wuxuu u madax banaaneeyay inay cid ay doonaan la kulmi karaan halka maamulada hoosana lagu eriyo kara haday la kulmaan maya taa waxaan filayaa inaad u jeedo in dhalinyaradii xafladda ka qayb gashay aan jecelahay sida runtii xisbiga wadani xafladaha waaweyn noocaas oo kala qorshayaal buu kaleeyay iyo nidaam buu kaleeyahay qorshuhu kala wuxuu xafladda maalinta la qabanayay xisbiga wadani uma dirin cid uga qayb gashay marka waxa weeye si iyagu madax banaaniya oo keligooda bay uga qayb galeen saan filayaa inaad sheegayso dhalinyaradaas ma garanayo mas'uuliyiin kale xilka laga qaaday dhalinyaradaana waxaan loo filay in xilligii maxay tahay campaign markii la galay inay markiiba dib uga fariistaan xisbigii oo ay ku qanceen inay xukuumadda la shaqeeyaan marka xukuumadduna waa xukuumaddana waa loo madax banaanaysiin baan anigu aaminsanahay wax dhibaato challenge ama culays la saaray ma jirto ayaamaha fooda inagu soo haya hadii ilaahay ka dhigo musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii lagu dhawaaqay isaga laftiisa maxaa idinka meel yaala marka uu booska tago maadaama dhalinyaro badan ay ku xil waayeen madaxweynaha qaranka iyo maxay tahay gudoomiyaha qaranku labaduba waa mas'uuliyiin qaran weeye xisbiyada qaranku way shiri karaan madaxweynaha way la shiri karaan anigu gudoomiye gobolkan ay gobolka waa la shiri karaa wax naga mamnuucaya ma jiraan waxa uu la diiday wixii aan wadani ku tashan in lala shaqeeyo xukuumadda iyo in loo tago midnaba lama diidin oo madaxweynuhu waa u tagi karaa anigu barasaabka gobolka waan u tagi karaa xafladaha maxay tahay la wada leeyahay qaranku simeeyay waanu ka qayb gali karaa heer gobol kuwa heer qaranna madaxweynuhu waa ka qayb gali karaa mushkilad ma taasi laakiin dad adigu maanta aad weydiinaysa waxa weeye waa tii hore ee dhacday ee xisbiguna mowqifka iska taagay inta casuumadda loo keenay ay yiraahdaan xafladda kama soo qayb galino ayay dhalinyaradaas iyagu ismaamuleen soo saama marka taasi waxa weeye iyada qorshe gaar ah bay lahayd
tani laakiin masiirkii dalka laga talinayaayo gudoomiyaha xisbiguna masiirka dalku ku leeyahay talada in wax ka bixiyo madaxweynaha qaranka inuu tagaana de waa waxa weeye waa choice buu leeyahay marka ma sharciga xisbiga wadani baa dhigaya in marna free sayso marna cid gaar ah ay u tagi karto madaxtooyada ama madaxda heer qaran u tagi karto marna cid gaar ah haday tagto lagu xadidi karo de cid gaar ah lama eegman gudoomiyaha xisbiga waa la eegmaday siyaasadda xisbiga loo eegmaday in hoggaanka xisbiga waa la eegmaday siyaasadda xisbiga loo eegmaday marka qofkii la eegmaday ee wadani eegmatay wixii uu u maleeyo inay sax tahay uu qabanaya waan gartay iyada laftigeedu waxa aan yani laga dhaqarsan karin ama la iska indhatiri karin Faadimo Saciid oo waqtigii ugu dambeeyay aan oran karno 2 xubnood 3 xubnood baa ka sii dambeeyay iscasiladeedii ka tagidii xisbiga wadani dad badan oo xisbiga wadani ka tirsan ayaa waxay ku eedeynayeen inay habeenkii madaxtooyada tagto marka ma waxa la oran karaa dadka habeenkii madaxtooyada taga ama madaxtooyada sideeda gaar ah ugu xidhan ayaa xisbiga wadani uu ishaaqdaa ama eegtaa runtii Faadimo Saciid inaan xisbiga ka tirsan bay ahayd waxaana ahayd maxay ahayd gudoomiyihii ama aan idhaahday maxay ahayd wakiilkii arrimaha dibadda ee xisbiga ahayd xogayaha arrimaha dibadda runtii ana iyadana way hadashay xisbigana iyo maxay ahayd gudoomiyahana way mahadcelisay markay ay ka tagisay maxay ahayd xisbiga qofkuna de waa xor xisbiga cid laguma soo raafin cidna lagu soo raafi maayo qof kastaabana xisbiga xorriyadiisa ku jooga xorriyadiisana wuu kaga tagi karaa oo waxa didaya ma jiraan mana hatta al'aana maan maqal cidda xisbiga wadani oo mas'uuliyiina oo Faadimo Saciid eedaynaysa ma maqal aniguna runtii ay inta de wax eedo aan imika soo jeediyo oo aan ku eeday anigu ma hayo waan gartay xisbiga wadani maxaa uga meel yaala doorashooyinka soo socda runtii doorashooyinka soo socda xisbiga wadani way diyaar garaysan tahay waxay u ordisay 24 saacadood dhexda ay u xidhan tahay wax weeye si doorasho qabsoomi lahayd oo ay waliba u qabsoomi lahaayeen golayaashan deegaanka maxay tahay qaarnadii maanta 15 sanadood 2 sanadoodna leeyahay waa lagu sidaray 17 sano gaadhaya qaarnadii 10 sano ee u dhow ay marayaan iyo kuwa kale dhowr iyo 20 sanadood maraya sidii loo bedeli lahaa xisbiga wadani way ka go'antay marka 2-3 bal nooga taabo wax idin ka meel yaala doorashooyinka soo socda doorashooyinka soo socda horta waxa nooga meel yaala waxa weeye waa in tartan hufan markaanu helo ciddii siiri walaha ahayd ee noo qaban lahayd siiriga marka la soo magacaabo ee processkeedii la mariyo maalintii dhaweydii aan galay maxay tahay shirkii golaha dhexe ee xisbiga Burca lagu qabtay runtii gudoomiyuhu wuxuu ka iclaamiyay in loo diyaar garoobo doorashadaasi looga qayb galaa annagu waxaan u diyaarsanayn hadaan nahay gobolkan Togdheer inaanu bilowno ciddii nooga qayb gali lahayd ee tartanka ama heer baarlamaan ha noqoto ama heer deegaan ha noqotee inaanu diiwaan gelino annagoo taa qorsheedii ku jiraba deetana dib dhacan yimi iyo buuqan iyo isqabseen waa tahay adiga ku haysta ee xisbiga wadani waxa mudooyinkii ugu dambeeyay ama sanadadii ugu dambeeyay ama ilaa iyo markii la asaasay musharax ka ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ciro markii ay gaadho shirweynihiina ma laga yaabaa inay cid kale soo istaagto oo uga haboon inay musharax ka noqoto xisbiga wadani horta xisbiga wadani waa xisbi dimuqraadi weeye waana xisbi curdina oo runtii xisbiyadan de 20 sano ku dhow iska fadhiyay maaha waa xisbiga doorashadii ugu horeeyay ee uu galay 42% ku keenay Cabdiraxmaan buu ahaa musharaxii hogaaminayay 42% dadka reer Soomaaliland ay u codeeyeen markii shirweynaha la gaadhana xisbiga waa xisbi dimuqraadi oo hadii ciidiisa soo taagayso Cabdiraxmaan la tartamayso de cid ka joojinayso oo odhanaysa ma tartami kartid ma jirto laakiin wax lagu dhaliilo mare oo la yiraahdo maanta meel buu iska fadhiyaa qof kastaaba inuu 2 teeram tartamo xaq buu leeyahay waa tahay idinka ka xisbi ahaan oo waliba ka gobol ahaan maxaa idinka meel yaala shirkaas heer qaran ee idin soo socda ka wadan ahaan waan u diyaar garoobnaa insha Allah xilliga uu sanad baa kulli dib loo dhigay maalintii golaha dhexe dib loogu dhigay waan u diyaar garoobnaa insha Allah inaanu si mug iyo miisaan laan uga qayb galno insha Allah laakiin ilaa hadda ma cadamiya musharaxiinta isu soo taagtay inay ka noqdaan musharax xisbiga wadani miyaa imka mid baa wax qarsatay saa kulmiya lagu dhawaaqi lahaa hadii nin tartamaya uu jiro saa kulmiya oran lahaa ama gudoomiyahan tartamaya ama musharax baan ahayd
ma laga yaabaa inaanay jirin wax kalsooni ah oo laga qabo xubnaha bulshada si guud ee wadani iyo xubnayaasha ka tirsan golaha dhexe inay u codeeyaan hadii buu cid kala soo bixi lahayd ku celi ma u malaynaysaa inay jirto kalsooni darro aanay soo sharaxi karin cid kale horta qofka isku kalsoon baa tartama sagalay qofka tartama waa qof isku kalsoon qof aan isku kalsoonayn de meesha ma soo fadhiisto de qofkaan isku kalsoonayn ee kalsoonidiisu ay dibadda baqdin tahay ka sii gelinaysa de tartama ba kare maayo saasana aaminsanay horta waxa lagu bilaabaa ama lagu dhaqaaqaa marka aad ifafaale arkaysid marka loo eego musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo golaha dhexe markuu qofku sidaa u eego waxa dhici karta inuu dib u yaraha kado laakiin idinka laftiina rajo ma idinka muuqata aad ku bedeli kartaan haddii aad heshaan cid ka habboon de horta cidda ka habboon ciddii isi soo taagtaba horta habboonidii habboon laanta waxa la kala gartaa marka qof halkan isi soo taago saa runtii laakiin gudoomiyaha hadda cid ka habboon oo la leeyahay hebel baa ka habboon ah loo yeedho xisbigeyguna maanaha xisbi hagbad ku jira oo dad cid hagbad kula jiro oo cidi ku heshiisay in markayga Somaliland markayga imanka maraysaa markayga xisbigani wali muu gaadhin waa xisbi curduna ninkii asaasay baa mar tartamay 42 buu soo gaarsiiyay maantana hadduu tartamo xaq buu leeyahay halka markaa waxaad noo cadaynaysaa inaanay jirin cid kale oo ama beelaha darafyada ha ahaato ama beelahan sida gaarka ah u haystaba ha ahaatee ma waxaad noo cadaynaysaa inaanay jirin cid kale oo oranaysa de bal maanta anaga waa maalinteedii de wali cid dhawaaqday ma hayno cid dhawaaqday ma hayno mar haddii sanad kaliya ka hadhay waa waqti yar oo waa 12 bilood marka 12 ka bilood ma sugi doontaan ma rajayn doontaan inay musharaxiin badan imanayaan ama ku xigeenka ha ahaado ama booska musharaxa ba ahaado de xisbigu rag badan oo han laba ku jira oo fara badan baa ku jira lama oran karo marka Somaliland loo eego ragii yaani han kala hayo dhan baa buuxa wasiir soo noqday madax soo noqday meeshii doonaan ka soo shaqeeyay oo fara badan baa de buuxa hanka yeelan doonana wali ma soo bandhigin de marka waynu sugaynaa insha Allah insha Allah biidhnillaahi kariim wax ka ku darsanaysa ma jirto oo dilowday wallahi waxaan ku darsan lahaa saaruntii dalkeenu maanta wax maraya dhinac marka laga eego meel fiican ilaahay nimcuuna siiyay barwaaqeena fadhina hodaalkan quruxda badan ee imanka wax ku doobaysan waxa waa nimcooyinka ilaahayna siiyay laga ma abaalka daro meeshaynu ka nimid Somaliland meel fog bay meel siiro ayaan ka soo bilownay maanta kor baynu soconaa saaruntii laakiin se waxyaalo leeyahay kuma jiran jiray waxa lambar 1 ka ahayd nidaamka doorashada weey waxaan halkan baa uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo maanta ay ku soo ururtay masiirkii Somaliland dhammaan culimadii codkarkii aqoon-yahankii abwaankii xisbiyadii dhammaantii isaga taladii gacanta loo geliyay waxa la madaxweyne ka tali dalka isagaana awood u leh hadduu mid sharci u maraayo iyo hadduu maxay tahay mid xagaysi u maraayo iyo hadduu mid odayayna u maraayo Somaliland wada sharci meelan lagu wada socodsiin sharciga Somaliland ee dastuurka inoo quraan ma quraanka ayaan la bedbedel iyo xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam laakiin wixii kastee bilaadan samaysto marka meeliisa soo taagtay waxba laga bedelaa marka madaxweynaha waxaan leenahay adigoo dalka iyo dadka iyo buuqa faraha badan leh inoo dhacay iyo beesha caalamka faraha badan leh inoo soo gurmatay iyo shirka Djibouti maalintii dhaweeyta lagu galay hadal haynta ugu weyn ay ahayd Somaliland waxay ku naaloonaysay ama ay ku faani jirtay ama Soomaaliya ay maxay toy kaga horeysay waxay nidaamka doorashada tiina madow baa galay madaxweyne madowga ka saar baan leeyahay insha Allah aad baad mahadsantahay gudoomiye nabaday daawadayaal waxa inta inoogu soo dhamaaday barnaamijkeeni toddobaadlaha ah ee codka siyaasiga oo aalaaba idin qabato anigoo sagal gobaad ah maanta waxa marti inoogu ahaa gudoomiyaha gobolka xisbiga wadani aniga iyo bahdi igala qayb qaadatay waxaan leenahay is arag maqal dambe oo xiiso leh